maalin maalmaha ka mida waxaa jiray wiil agoon ah. hooyadii ayaa soo korisay, isagoo yar ayuu aabihii dhintay. waxay kula dadaashay in wiilkeedii uu noqdo qof aad diinta ugu wanaagsan, waxbarashada kalena ku wanaagsan. waxay kula talisay hooyadiis in uu guursado markii uu helay shaqo wanaagsan oo waxbarashadii uu dhammeeyey, gabar wanaagsan oo jannada u horseeda inuu galo. laakiin dardaarankii hooyadii wuu diiday, oo waayo wuxuu jeclaaday gabar qurux badan oo markaasi dadkoodu ay yihiin dad hanti leh. gabadhii waxay timid ehelkeedii iyadoo u sheegtay sida ay wax u jiraan. waxay kula taliyeen inay iska sii joogto guriga lagu guursanayo, duqdana iskala noolaato. mar dhow iyada ayaa dhiman doontee, maadaama ninka uu hawl wanaagsan haysto, iyadana uu ku filan yahay. markii ugu horreysay ee ay isugu yimaadeen miiska cuntada, habeenkii ugu horreeyey ayay miiska ka kacday xaaskiisii cusbayd. waxay soo gashay qolkeedii, wuu ka soo dabagalay bal si uu u waraysto waxa ku dhacay. markaas bay waxay tidhi, waxaa ii cuntami waayey cuntadii inaan cuno, waayo waxaan ka rahsanayay hooyadaa oo qaabka ay wax u cunayso aanan jeclaysan. waxaan kaa codsanayaa marka aan cuntada cunayno hooyadaa inay iyaduna meel kale ku cunto oo aanay noo soo dhowaanin. laakiin ninkani hooyadii waxa ay ku soo korisay wax wanaagsan, waxay soo bartay diinta. wuxuu garanayaa waalidka iyo sida ay ugu baahan yihiin awlaadooda, iyo in ilaahay uu markaasi u naxariisanayo qofkii waalidkiisa u naxariista. miiskii ayuu ku soo laabtay. hooyadii waxay weydiisay, maxaa ku dhacay gabadhaadii ama xaaskaagii? markaas buu wuxuu ku yidhi, hooyo, iska daa, waa wax yar, iyada ayaa soo noqon doonta, cuntadana cuni doonta. markay intaasi marayso ayaa waxaa casuumaad loo fidiyey reerkii wiilkii hooyadiis iyo xaaskiisa. waxaa casuumay gabadha uu guursaday aabbaheed. way isa soo raaceen oo waxay yimaadeen gurigii. inta aan casuumaadda loo fadhiisan ayaa waxaa si gooni ah u wada hadlay wiilkii gabadha qabay iyo gabadha aabbaheed. gabadha aabbaheed wuxuu ku yidhi, gabadhaydu waxay dhibsanaysaa hooyada oo ay la nooshahay. fadlan waxaan kaa codsanayaa hooyadaa inaad meel kala dejisid, adigana aad gabadhayda la noolaatid, sidaas bay ku faraxsan tahay. wiilkii uma jawaabin. markii uu miiskii cuntada yimid buu wuxuu ka waayay hooyadii oo aan fadhin. reerkii guriga ayaa geeyey madbaha ama kushiinka si ay cuntada ula cunto gabdhihii adeegayaasha ahaa. qayla ayuu afka furtay. wuxuu muujiyey dareen aad u carab badan. waxa uu soo xambaartay hooyadiis. waxa uu muujiyey in hooyadiis ay wax walba uga qiimo badan tahay. ilmada ayaa wiilka ka socotay, isagoo ka xumaaday habdhaqanka reerka ay kula dhaqmeen hooyadiis. xanaaq badan kadib buu wuxuu u soo jeestay reerkii guriga. wuxuu ku yidhi, waxaan idiin sheegayaa, hal bil bay gabadhu guriga ka maqnaan kartaa. waa in marka ay soo noqonayso gurigayga ay ku soo tala gasho aniga iyo iyadaba inaynu u adeegno hooyaday. haddii iyadu aanay arrintaasi raalli ka ahayn, waxaan siin doonaa warqaddeedii furiinka, waana furi doonaa. reerkii gurigu waxay la yaabeen jacaylka uu wiilkan u qabo hooyadiis. markaas buu ku yidhi, anigu waxaan doortay jannada, adinkana waxaad doorateen adduunka. ma jirto hooyaday wax iiga qiimo badan, gabadhiinana haysta haddii ay qaban weydo waxa aan doonayo.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.